guro بالخير ويا روسو بربركور كوهشيسا بلانتي كدبايسي وعنا وناكسنا قيارتها وضينا قداول سعيد الكيمبا ميلور بوا جوجتان وعنا دلنا وقت قاعدين وحنا هذا لما أنتم بموقارك الله يقرأ عيد والبا موقارك الله يقرأ سبحان الله سبحانه وتعالى عنك كبر ينا أموره اللي ذا إلهين وسعلو إلهين أولاد وحفديو أنت أولاد دون كان إلهي أولاد بارئة حسيو أنت قول دون كان قول وناكسني مستقبل وناكسني يبويني حسيو لما أنتم بأمورها اللي دين إلهي سعلو إلهي سبحانه وتعالى وعنك كبر ينا قف والبا موقارك الله يقرأ إن ربي سبحانه وتعالى وسعلو أمورها qofkaasi uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiisa dambiga waalidkiisba ee bahada fadamaantiiba muuqaalka leegta ku qabta leegtana lacag meehe oga waxaan eegi doonaa xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Mareykanka ayaa fadeexadii ugu weyneed la soo bandhigay ayadoona muuqaal laga duubay saaxiibkeed ee iskaga furtay ninkii Soomaaliga ahaa Tom oo Soomaali oo Mareykan asalkiisa isla markaana Christian waxaana wargeyska Daily Mail uu soo bandhigay fadeexadii ugu dambeysay Ilhaan Cumar waxaana Ilhaan Cumar iyo Tom oo hadda labadoodaba kuwa madax bannaan isla markaana isdoortay ayaa waxa Ilhaan iska furtay ninkii Soomaaliga ahaa ee qabay isla markaana muslimka Ahmed Xirsi halka Tomna hadda Daily Mail uu warbixinta qortay ku sheegtay in naagtiisa caruurta u dhashay uu furay isla markaana uu soo madax bannaanaaday Ilhaan Cumar waxaana wargeyska Daily Mail uu soo bandhigay sawirro iyo waliba muuqaalo muujinaya Ilhaan iyo xiriirka ka dhaxeeya Tom waxaana labadooda ay wada sitaan faraanti isku eg taas oo muujinaya in labadooda ay isqabaan isla markaana ay isku guursadeen waxa ay aaminsan yihiin ayadoona qofka haweeneyda muslimada diiniyan ama dhanka shariicada islaamka aysan guursan karin qof gaar ah diintana aysan baneenin laakiin waxa muuqata in labadooda ay isku guursadeen diin ka baxsan tan islaamka waxaana Daily Mail uu soo bandhigay muuqaalo muujinaya Ilhaan Cumar iyo sidoo kale Tom oo wada jooga meelo lagu raaxaysto waxaana sawirada qaarkood ka muuqda in howlgallo ay ka soo baxeen labadooda waxaana la arkayaa ayagoo garbaha is haysta mararka qaarna garba siman iyo waliba Tom oo dhinaca dambe ama gadaal ka socda meel u dhow oo talaabo u jirta Ilhaan Cumar wargeyska ayaa waxa uu qoray in Ilhaan Cumar iyo Tom ay isguursadeen isla markaana ay qarinayaan waxaana la sheegay in Ilhaan ayada ay codsatay inuusan Tom hadda shaacinin guurkooda iyo waliba in ay yihiin lamaane isdoortay laakiin ay la shaaciyo doorashada soo socota kadib hadii ay soo noqotay Ilhaan Cumar waxaana arintaasi lagu macneeyay in Ilhaan ay ka baqayso taageerada dadka muslimiinta ah markii hore aqlabiyadda Ilhaan u codeysay kolkii hore markay ku soo biireysay Mareykanka waa baarlamaanka Mareykanka waxay ahaayeen dadka muslimiinta waxayna ka baqaysaa Ilhaan Cumar in dadka muslimiinta ay ku kacaan maadaama shariicada islaamka aysan qabin gabar muslimad sheeganaysa in ay guursatay nin Christian waxaana taas ay keentay in Tom iyo Ilhaan ay ku heshiiyaan in guurkooda in lagu dhawaaqay in laga dhigo waqti kale gaar ahaan doorashada hadda soo socota kadib markay dhacdo hadii Ilhaan Cumar ay ku guuleysato kursiga xildhibaannimo ee Mareykanka waxaana taageerayaal badan Ilhaan ay ku weysay ceerinta iyo waliba inay iska furto ninkii Soomaaliga ah ee qabay Ahmed Xirsi kaas oo noloshiisa u horay inta badan Ilhaan Cumar isla markaana door muhiim ah ka ciyaaray in Ilhaan ay ka mid noqoto baarlamaanka Mareykanka laakiin markii baarlamaanka Mareykanka ay ka mid noqotay ayaa Ilhaan soo qaba Ahmed Xirsi waxay la saaxiibtay ninkan hadda muuqaaladiisa aad u jeedaan Daily Mailna mar kale ay soo bandhigtay fadeexadii ugu weyneed waxaana ay ka dooratay ninkii Soomaaliga Ahmed Xirsi ninkan Tom lagu magacaabay asalkiisa Mareykanka haystana Christianka waxaana sidoo kale Ilhaan Cumar taas ay noqotay in fadeexad weyn ay ku noqoto isla markaana dadkii kolkii hore u codeeyay muslimiinta gabi ahaanba waqtigan ay ka hor yimaadaan ayna diidaan in mar kale ay doortaan Ilhaan Cumar Ilhaan ayaa dhankeeda waxay go'aansatay gabi ahaanba in la qariyo kiiskan tani inta mar kale ay ka soo noqonayso xildhibaan ka tirsan Mareykanka ayadoona gobolka ay ku matalayso baarlamaanka Mareykankana ay yihiin gobol ay u badan yihiin dadka muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaalida Oromada iyo waliba dadka kale ee Carabta waxaana Ilhaan Cumar dhankeeda ay go'aansatay in arintan ay noqoto mid qarsoodi ah xiriirkooda saaxiibtinimo iyo jaceelna ay sii wataan
waxaana taas ay keentay in Axmed Xirsi ay ka dalbato furniin ayadoona ugu dambeyn maxkamadda sare ay go'aamisay in Axmed Xirsi ay ka furto waxaana taas ay keentay in Ilhaan ay u soo madax bannaanaato Tom laakiin xaaska Tom uu qabay ayaa muddo diidaneed in la furo laakiin hadda wargeyska Daily Mail wuxuu qorayaa in ay aqbashay ugu dambeyn in la furo isla markaana ay u hoggaansantay go'aanka maxkamadda oo ka codsatay haweeneydan in la furo isla markaana ay aqbasho Tom iyo waliba Ilhaan Cumar ayaa sawirada iyo waliba muuqaalada ugu dambeeyay la soo bandhigay waxaa iska cad in labadooda ay yihiin laba labaano isjecel isla markaana guur uu ka dhaxeeyo qaabku raba ha noqdo guurkay waxaase Daily Mail ay sheegaysaa haddii ay arinta sidan ay ku sii socoto isla markaana la sii qariyo guurka Ilhaan Cumar iyo Tom inay soo bandhigi doonaan cadeemo iyo waliba muuqaalada la yaabo adduunkana dadka ay la fajacaan waxaase dhici karta in Daily Mail dhaqaale badan ay ku bixisay helista muuqaaladan fadeexada ku ah Ilhaan Cumar oo xildhibaanad asalkeeda Soomaali ah laakiin dhalashada Mareykanka haysata waxaana Ilhaan Cumar kolkii hore dad badan ay kaga niijabeen taageerada weyn ee u muujiso ragga guursada iyo waliba haweenka guursada oo ah dadka isku jinsiga ah inay isguursadaan waxaase arintaasi ka sii dartay markii ay meel cad ay kaga tagtay ninkii caruurta ee u dhashay oo ay ka raacdeen nin Christian Mareykan ah taas oo dad badan ay kaga sii niijabeen Ilhaan Cumar waxaana Ilhaan hadda ay wajahaysaa doorasho ayadoona loolan xoogan kala kulmi doonto dhowr qofood oo Soomaali ay waliba gabar Ciraaqiyad ah oo muslimad ah waxaana dhammaantood ay yihiin kuwa doonaya kursiga ee ku fadhisay Ilhaan Cumar maadaama Ilhaan ay dhax fadhiso fadeexad aad u weyn isla markaana xaaladeedu ay tahay mid aan kabasho lahayn waxaana muuqaalada Daily Mail oo qofkii galaa uu arki karo Ilhaan iyo fadeexada iyo ceebta ay dhax fadhiso uu arki karaa Ilhaan halka ay joogtay iyo waliba shalay halkii ay joogtay waxaana hadda muuqata in mustaqbalka siyaasadeed Ilhaan uu yahay mid mugdi ah isla markaana god dheer ku sii dhacaya waxaana gabi ahaanba baaba'ay taageeradii ay u hayeen dadka muslimiinta ah oo kolka hore ku taageerayay showga iyo waliba jelista ku aadan in ay sheegtay inay tahay gabadhii ugu horeyso qamaar sidata oo gasho aqalka baarlamaanka Mareykanka laakiin waxaasoo dhan waxaa beeniyay markay soo baxday fadeexada ku aadan in ninkeedii Axmed Xirsi oo qaba ay la saaxiibtay Tom oo ah Mareykan Christian ah taas oo gabi ahaanba tirtirtay beentii iyo waliba jelistii ay sameeynaysa Ilhaan Cumar qof walbo Ilhaan iyo macluumaadkeeda rabo wuxuu ka eegi karaa wargeyska caalamiga ee Daily Mail oo warbixin la yaab leh ka soo qoray Ilhaan Cumar iyo waliba ceebta ay dhax fadhiso dhamaantiin bilaahay idin xifdiyo ilaahay umuuraha leedina sahlo Allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla ilaahay waxaan dhamaanteen aan ku weydiisanaynaa nasug oo nagu sug diinta islaamka waxaan dhamaanteen ilaahay aan ka baryeynaa umuuraha leenahay inoo sahlo ilaahay caruurta inoo baraka inta awlaaddoonkaan ilaahay awlaad baariha u sahal ilaahay Soomaaliya ka dhig meel aamin ah oo qaranimada Soomaaliya ya rab dib u soo celi ilaahay dhamaanteen waxaan ku weydiisanaynaa oo aan ka baryeynaa aan ku su'aalinaynaa ilaahay dhamaanteen jannatul firdaws al-a'la ayaan ka baryeynaa ilaahay jannadaada firdaws al-a'la ilaahay nasi ilaahay dhamaanteen waxaan ku su'aalinaynaa oo aan ku weydiisanaynaa oo aan ka baryeynaa Allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'diya lima mana'ta wa la qadda illa qadayta wa la yanfa'u dal jaddi minka al-jadd ilaahay waxaan ka maangalnaa kuwa sharta dhibaatada iyo lugooyada inala damacsan wixii sharaha oo dhibaataa oo lugooyaha oo inoo maleegayaan ilaahay ku celi ilaahay dhamaanteen waxaan ku su'aalinaynaa oo aan ku weydiisanaynaa oo aan ka baryeynaa ilaahay dhamaanteen gargaarkaaga iyo nasrigaaga nasi oo ilaahay na hareer mari cudurrada adduunka ka jira iyo waliba cudurrada hadda soo kordhay ilaahay adaan ka maangalnaa ilaahay adaan ka maangalnaa cudurrada adduunka soo kordhay oo coronavirus ugu horay ilaahay Soomaalida ka xijaab oo Soomaaliya ilaahay keenin ilaahay dadka Soomaaliyeed oo qurbaha joogana ilaahay rabbi raxmaan oo ka xijaab adaan ka maangalnaa ya Allah إلهي ولما أنت مقعد ونكسر وحن كجوا ديسنا نحريست هذه الجرجار كذا الله لا إله إلا هو الرحمن والرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلهي وحن كجوا ديسنا جرجار كذا كلمة هذه نحريست هذا إلهي وذنك عبدنا وكلمة أنك وديسنا إياك نعبد وإياك نستعين يا الله إلهي ولما أنت بينو جرجار ونصر جرجار كذا نسي إلهي وحن قدك تكون رفيقي سنقدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وحن كبرنا والدين تنا إلهي ودم بيجود ضاف إلهي الدنيا آخرة لما أنت بإلهي والدين تنا ونحرسه إلهي ضدك الصوماليين باهن إلهي باهي علاسك إلهي كد القاد إلهي وأنت عنوسنا عنوك كد القاد وعاف ماد وجبدل إلهي ضدك الصوماليين علاس كربي عريري هيست إلهي علاس كربضة لبعضها إلهي كد القاد إلهي أنت حبسيده كجت الصوماليين إلهي حبسيده كصوصار وإلهي رب الرحمن والنصر خير قوي إلهي أفر إلهي لما أنت محن كوي ديسنا جرجار كلام هذا يا رب إلهي
adaan gargaar ku weydiisanayna dhammaanteenba ilaahu noo gargaar oo ilaahu dhammaanteenba inoo kalme oo ilaahayow dhammaanteenba nasrigaaga gargaarkaaga ilaahu nasi ilaahayow rabbi xawana daa cizi iyo sharaf iyo karaamo bixiya ilaahu dhammaanteenba cizi iyo sharaf nasi ya allah ilaahayow waxaan ku weydiisanaynaa oon ku su'aalinaynaa oo aan kaa baryaynaa yaa rab ilaahu rabbi raxmaanow noo naxariiso naxariistaaga guud iyo midda gaar ahaaneed ba ilaahu dhammaanteenba noo naxariiso ilaahu inta xanuunsan inta kurbaysan ilaahu kurbada ka dulqaad oo xanuunka ka dulqaad oo caafimaad ugu bedel wasala allahuma calaa nabiyina muxamedin wasallim تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله